madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa ku adkeeyay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu in la gaaro xabad joojin degdeg ah iyo heshiis lagu sii deynayo maxaabiista Israa'iil sida aqalka cad uu sheegay. Warbixin arrinkaasi ku saabsan waxa inoo haya Xasan Sheekh Cumar. madaxweynaha dalka Mareykanka Joe Biden iyo ku-xigeenkiisa Kamala Harris oo qadka telefoonka kula hadlay ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu ayaa u sheegay inay muhiim tahay in meesha laga saaro caqabad kasta oo xanibi karta heshiis ay gaaraan Israa'iil iyo Xamaas, iyagoo sidoo kale sheegay in muhiim ay tahay in si degdeg ah loo gaaro xabad joojin iyo heshiis lagu sii deynayo maxaabiista Israa'iiliyiinta ee gacanta ugu jira Xamaas. waxaa Biden iyo Harris ay sidoo kale u sheegeen ra'iisul wasaaraha Israa'iil in Washington ay ka go'an tahay inay ka caawiso Israa'iil iska difaacidda wax aqalka cad oo ugu yeeray dhammaan hanjabadaha ka imaanaya Iiraan, Xamaas, Xisbullah iyo Xuutiyiinta. hadalkan ayaana imaanaya kadib markii xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka uu soo gabagabeeyey socdaal diblomaasiyadeed oo uu ku marayay bariga dhexe isagoo ka shaqaynayay heshiis hadafkiisu uu yahay in xabad joojin la gaaro lana sii daayo Israa'iiliyiinta ay Xamaas qafaalatay. xafiiska Netanyahu ayaa Arbacadii aynu ka soo gudubna sheegay in Israa'iil ay qorsheynayso in ciidamadeeda ay ku sii hayso dhul ka tirsan xuduudka u dhexeeya Gaza iyo Masar oo loo yaqaano Philadelphia haddii uu dhaco heshiis dhexmara iyaga iyo Xamaas. hase yeeshee Xamaas ayaa arrintaa u aragta mid aan suuragal ahayn oo waxa ay dalbanayaan iyagu in guud ahaanba ciidamada Israa'iil laga saaro Gaza, taas oo muujinaysa halka labada dhinac ay kala joogaan. Israa'iil ayaa u muuqata inay ku adkaysanayso iyadu in gebi ahaanba aanay Gaza ku noqon meel amnigeeda khatar ku ah. dalka Masar ayaa isaguna sidoo kale ka soo horjeeda joogitaanka ciidamada Israa'iil ee ku sugan xadka ay la wadaagto Masar Gaza. isniintii xogayaha arrimaha dibadda ee dalka Mareykanka Antony Blinken ayaa waxa uu sheegay in Israa'iil ay ogolaatay soo jeedinta Mareykanka ee ku saabsan in meesha laga saaro dhammaan waxyaabaha caqabad ku noqon kara wadahadalka guntiisu ay tahay heshiis kadib kulan saacado badan oo la qaatay ra'iisul wasaaraha Israa'iil oo ka dhacay Qudus. laakiin Blinken ma sheegin in aqbalaadda Israa'iil ay ku jirtay in ciidamadeeda ay kala baxayso Gaza oo ay fulinayso dalabka Xamaas.